koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalka madaniyo huwaaga tariniya hawsha malaweeyeedhaylalamay hadaadideolodila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa ila meeraysadii way soo dhammaanaysa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay low waranagu horanu goonee aqoonsigan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay war ma haysiine toddobaadkii xorriyadda bilowday war wadooyinkii muqdisho miyaa la xoreeyay war beertii xorriyadda ee magaalada hargeysa ayaa 60kii laga taagay kow calanka war maalinta Soomaaliland ee calanka taagay waa 18 May beertii xorriyadda bara caafimaadiyo guri la isku baantay baxsanay hargeysay ka gudoomay baaqi alla dhihi jira war baaqi goosashada Soomaaliland miyaa laga gudoomay war ma haysiina 26kii Juun markii calanka hargeysa laga taagay wuxuu yiri Cabdullaahi Suldaan calankaynu sugaynay sahankiisa ahayne sigadii naga mayrayo samada kii weekaye xilliga mid la siiyo saacirkii kala guuray sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegno kana sibka nasaare ariya sida Cabdullaahi Suldaan timacad ma taqaanide saahirkii kala guurnaye sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegne kana sibka nasaare warwarka waad naga dhax gasheene heesaha shidan ee kala kacsan maalmahan oo kale waxa kamid ah goormaan ladnaanaye 60kii lugooyadii nadaysaye 26kii Juun goormaan lulaanaye 6 saac goormaan libaanaye kowdi luulyo laba midowday wareeska xorriyadda waana qaanay markaad hees kala kacsan oo shidan ku sheegtaad ku dheesho sharafta ka qaad ee magaalada uu kala kicinooyaabe saaxiib ku qaadano aryadaha anigu waxaan la yaabanahay meeshii maalmahan oo kale la qaadi jiray heesii xorriyadda baabuur makarafoonna ku xiran yihiin heesii kacaandiidka loo qaadi jira laga shiday war makacaankii soo noqday war abwaan aqoon saashaas weydiiyay wuxuu yiri dad baa wali kacaankii sida uu sii eegaya aryadaha warkayga dhex gelinaya heesaha la qaadaya waxaa kamid ahay baasha u leexdaa hey naga baxo dadka biinaya hey naga baxo boogi ku taala hey naga baxo loomaba baahna hey naga baxo alla shidaye goorma heesaha xorriyadda lagu soo diray dad bay meeli bugtaa dad bay meeli bugtaa haddaysan dhihin waa droon yihiinba war maalmaha xorriyaddii maalmaha kacaanka ayaa isku qasan sanadkan ee dulqaata waynaan dareemine dadka kii dhargow daran dilaaliyo milaaliyo dib u socodna waysaga haddiiba aysan dhihin waa roon yihiin durdura geel baa ku jabaye
damaacina waa xun yahay dadkuna waa lama huraan dalkuna waa lama huraan hadday ku dari lahaayeen waa fiicnaa lahaayeen anugu waxaan isleeyahay hadday ku dari lahaayeen hadalkii madaalaha duca qaba dugsiyaha doodii goolaha sare maqaardii dambaa jira hadday dhihi lahaayeen waa la yaabi lahaa aryaadhaha waxaan maqli jiray waan yaabane siduu iigu yimid yahma iri jacayl yarow aragtida iyadoo la yidhaa warnimaya waxaad sheegaysaan ma ahane qaran dumis is-aruursadaana tihiine 60 sana horta laga joogaa xorriyaddii markii la qaatay dawladda hadda joogtana si aan horay loo xusin ayay u xusaysaa wareedhaa war ma haysaane guddoomiyaha guddiga qabanqaabada xuska xorriyadda ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada xuska xorriyadda ahna guddoomiyaha guddiga wacyigelinta cudurka coronavirus ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ahna afhayeenka dawladda federaalka ahna wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska allah ka cafiye wuxuu yidhi si aan weligeed la arag baan u xusaynaa xorriyadda soomaaliya ama soomaaliya ay gaartay dawladda federaalka ayna ku hogaamisay isku filaansho aysan weligeed gaalin taariikhda war intaasoo xil ah haddii hal nin isku haysto xorriyadda loo haysay xaggay taallaa war xilalku intaas waa ka badnaayeen ama qaar ka ilowdeen war xildhibaan cismaan daanlo baarlamaanka ka hadlaya wuxuu yidhi baqaarka ku yaala suuqbaxaad bagaashka yaalla boosaaso lagama keenin wuxuuna yidhi dekadda muqdisho uu ka soo degay canshuurtiisina dawladdaa qaadata ee dadka matalaadda muqdisho diidanow canshuurta bixiya aan idi aragne war nimaan wax bixin haddana wax diidayo waa maxay aryaadhaha cismaan daala waa shirbe wowsan ogayne ma wuxuu yidhi baqaar ku yaalla suuq baacaad bagaashka yaal biilaashmiya baqaar ku yaalla suuq baacaad bagaashka yaal biilaashmiya haye war bakaaro iyo suuq bacaadba waxa yaalla in la cuno waa la rabaa waddadii iyo sharcigii loo soo mari lahaana waa laga meermeerayaaye maxay tahay sababtu war xildhibaan khadiijo maxamed diiri waxay tidhi waxaan la yaabanahay xildhibaan ka soo jeeda somalilan iyo mid ka soo jeeda puntland iyo mid ka soo jeeda jubbaland iyo mid ka soo jeeda koonfur galbeed ayaa diidaya maqaamka muqdisho dadka muqdisho qusaydo ee waxaan u sheegayaa muqdisho waxaa ka hadli kara dadka degan yaa guri ninkiisaa dhista miyay tiri wasiirad khadiijo dadka muqdisho anigu ma qabo dad kale inay xagxagtaan maqaamkeeda iyo matalaadeedana kow waxa hor istaagay mas-uuliyiin muqdisho ka soo jeeday ahaayeen dhere ninkuu dhowaa lafta kala baxa maahinoo waxaan ad sheegayso war xaaladda muqdisho markaan eego hadba waa fajacaaye hooyadii dalka weeye maxaa loo hafrayaa war waxaa la yidhi sac ninkii laasaanta ugu fadhiya makacaa la yidhahdaa muqdishona dadkeedaa ku fadhiya ummadda kale yaa la xaxaganaa la soo dhoweeye waa martiye moogtihiin magaalada muqdishaynu joognaa war dalaalow yaa kuu sheegay waa ka dhacsanayda ar waxaasu hees maahine ma mililicdeen weli manaha calool xumooteen ay mare maqaamka la diiday maanta miyaad la yaabtay maanta warwar ma haysiina 26 juun Soomaaliland waxay tiri cid kale oo xusi kartaa ma jirta annaga xusayna TV-yadahan kowda luuliyo 26 juun inta wabaahinayna albaabada isugu dhufteen war haday saas sameeyeen Soomaaliland xurriyadda 26 juun ma diidane kowda Julaay iyo midowgay diidan yihiin Aba waa haweenkii guushe miyaa la aawa waa habeenkii guusho gobonimadu dhalato rabbi noo gargaaray galad weeye ku mahadnaqa miyaa Cabdullow aaba waa haweenkii ka dhigtay aryaa anigu saas kama dhigina kuwa bacda iyo wa'du isaga qaldan tahay oo la neeftuurahan arkaya beriga aaba waa haweenkii haweenka miyay dhaheen war waxaa la yidhi rasmi waxaan ahayn iyo rajiya daacad lagu raysto rafaad iyo dhib mooye cidnana dani ka raacaynin oo lagu rogmaday iyo ninkii bale ku reereeya fidnadana rabaayad u noqday raali gelinayso qalbigana ka raacdaynaya uur xun buu rimay aryaadhaha war ma haysin xan culusa soo gaartay runku suga isbigi weynaayo nabadyo nolol ee madaxweyne farmaajo musharaxa u ahaay qorshihiisa hore walaxa laga bedelay xanta soo gaartay ma la kala diray ma isku shaaneena lagu sameey maxoogagii wadaniyiinta laga saaray aryaadhaha waa waalantiina warkaan war weyn waaye iga dhigansada waxaan maqlay
madaxweyne farmaajo musharaxnimadii inuu ka tanasulay oo khayre oo tartami doono hadda aniga saasa ii soo dayina wuxuu waa xanaan idin iriya runku suga war maadaa isbedel noo sheega soo nabadiyo nolol madaxdeedii maaha war hadday farmaajaysan tahay iyo hadday khayraysan tahay miyaa kuu kala bedelan war waxa farmaajaysan waa shirka muqdisho ka dhici doona madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalkana waxay shirayaan 7 ilaa 8 bisha July hadda heefilla Soomaaliya isha lagu hayo maalmahaas raja fiican ka suga miyaad haddaana leedahay war doorashada dib loo dhigo miyay dhihi rabaan yaa haddii dib loo dhiga ninkii wax doonaya yaa uga liitay kula tahay adiga war shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu imaanayaan gudoomiye cabdi xaashim lagu casuumay war nimayahow madaxweyne deni wada hadalkii madaxda WhatsApp ku dhex maray ayuu sir culus ka shifay wuxuu yiri madaxweynaha waxaan ku heshiinay in kulamada baarlamaanka ee xeerarka doorashooyinka looga dooday la joojiyo mana dhicino way iska socdaan markii hadda wax laga qaban buu yiri Puntland way tashanaysaa boowe yaa gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashim wuxuu yiri go'aamada baarlamaanka ayaa maanka soo baxaya waa qaldan yihiin waana sharci darro war guddiga doorashooyinka xaliimire ay hogaamiso 27 bishan inuu baan hor yimaado laga rabaa hor yimaadeen maxay la imaan doonaan war nimayo madasha muqdisho xalay waxay qabteen dood adag oo doorashooyinka ku saabsan waxaana ka qaybgalayaasha ay sheegeen baahan inay doorasho dhacdo suurtagalna aysan ahayn doorasho qof iyo cod ah halka ugu dhow dalkan ay tahay in doorasho la qabto wixii dhib la yahaantay dhar laba waa la isu dhaafaa miyay dhaheen war taaliil shaatax madasha muqdisho xagee u wadaa iyo doodan maalin walba sii kululaanaysa war madasha muqdisho dadka caburiya lagu hadalsiinaya afkaartoodana lagu ogaanaya aryaadhaha abwaan cabdiduux yuusuf markii toddobaada la qalayaa la yiri xaalkiisu soo u yaala dawladdu saxay indhuhu ka qarsahe allah caafiya cabdiduux naftiisu wuxuu hore u yiri Soomaalidu waa bugtaa bistood weeyo la hubi inuu cudur baan helay bidhaanta laga gartaa hadda nasigiyay ku timid ilaahay ha caafiyo waraa walba Soomaalidu matalay waraayanta waxa soo korortay cabashadii dhulka ee dadweynaha degmada Huriway dhulku yaala waxar cadde 100 boos ka badan oo sharciyeysan oo dadku ay sabarloogiisa haystaan ayaa silig lagu wareejiyay gudoomiyaha gobolkana waa lagu nabay maamulka degmadana fuliya la yiri hawshaas war dadku waa isdhacayaan maalna waa dhunsanayaan dhigna way iska gelayaan haddaan eebba kala dhicin aryaadhaha ku qabso ku qadimay sida maaha waa ku jirtaa war ma aysiin maanta waxa banaan baxay xaafadda hargeysa ama dadegana waxayna sheegeen guryahooda iska dhisin in la xariiqday waxayna dhaheen shaatiga dawladda ayaa nagu dhacaya horta anigu waa yaabe nimayahow dawladdu shaatiyaal badana war nimayahow anigu waxa igu darneed marka dadka cabanaya ay dhaheen madaxweyne aaway cadaaladii aad ballan qaaday laakiin dadkaas hargeysa ama waxaan kula yaabay 20 sano baan deganayna yiraahdeen 20 sano miyaa dhul lagu yeeshaa milki kale lagu yeeshaa war dadku waxay dhaheen dhulka aan deganahay waa hanti guud dawladdu naguma haysato ee dad kale aan dhacay war wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku waxay tiri ciidanka Soomaaliya shabaab uma birdhigi karaan amnigana ma hana karaan aryaa dollar taraamna shalayowna dhahayo Soomaaliya dawladdu kama jirtee American xaw naga rabaa xamad u hadishe wari amaadaan maqal hasha geela u weyn haday durduriso aaranku waa ka dara odagii Mareykanka u weynaa haduu waashay ma wasiirana ay gambaraya awal sidaa doonto waad heliyaa soo soco yaa min kasta aanu sheegayn horta Donald Trump laga tumay doctor baa loo geeyay doctor waliina Muusar Cabdin xanuunka haya adeer aabba waxnu siin yahay allaha caafiyo dhakhtar baan rabaa inaan u wada aabe allaha u naxariisto adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku yidhi allaha u naxariistaan anna ku yidhi maxaa ka wadaa dhakhtar sawkii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha ee haddana faylka dheer loo gelayay sow maaha nacam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine 10 dhiig 10 dheecaan kumbuyuutar raajo iskaan iyo wax kaloo la sheegi karin kuu dirayay sow maaha alla ilaaha ee markuu intaad haysatayba kaa wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taalla lana tayaatan suuqa taalla kana qaalisan kuu sii qorayey maaha waa asiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabanahaye dhakhaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa kuweenna oo keliya ma xitaa kuwa ajinibta loo yimid iyagaa keenayo waa isku mid
ay ku mahmaadaa feeri ganjeelo forgat muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ka hadleen intaasaan ku soo koobaya ayaana sii badinaan ma dheheen war hayga dhex gelin warkii cabdidhuux yuusuf gabay ayuu tiriyey wuxuuna yidhaahday inta jidadku xidhan yihiin ummadduna jarriban tahay juguhuna dhacayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan huuse soconaya meel xunun buuna aadaya warkaan aniga cabdulla xalay tirinabaa ka weyn jidadkaad la xili maayo tiri waagii lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaab badane intaasaan ku soo koobaynaa ayaanan sii badin war dhajiskii ma laga toobay arwadaadihii ma laga shiday war waxaasi qaban maayaan asaasagaa leedha xanuunka u qabo unshida waryaa aryadhaha humbeelkii idan ma looga gelsha waryaa uunsi nina xilkiisa ku haya hor naga tag masixinoo u gubtay naga taga xurmihiidina allah idin xoreeye daawade si aanad noola meeraysan sabskraibde sidoo kale si aanan annaguna kula meeraysan laygta ha nagala masuugin ku soo dhowow youtube channelkeena